ayaa dhulka xeebta wali waxa ay ka wadaan howlgalkan looga saarayo guud ahaan gobolkan iyo dhammaan dalka waxa uu u socdaa howlgalkan si qorsheysan iyadoo kooxda al-shabaab ay u bacbacdhigi la yihiin cutubyada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo isku fidinaya deegaano dhowr ah iyo guud ahaanba gobolkan waxa ayna kooxda al-shabaab ay ka sii cararayaan goobihii ay ku sugnaayeen howlgalkan intuu socday lagu dilay ajaanib ka tirsanaa maleeshiyaadkaasi kooxda al-shabaab ninkaas wuxuu ahay nimankii Pakistan ka dagaalami jiray kulkii dabana Boko Haram u galay waxa la yiraahdaa Nasir al-Jabiri dambeyntii taliyaha qaybta 12 Abriil ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa ugu baaqay in ay garab istaagaan shacabka ciidanka la dagaalamaya kooxahan argagixisada ee al-shabaab ee xalaaleystay dhiigga iyo muwaadinka Soomaaliyeed hantidiisa waxaan shacabka Soomaaliyeed ugu baaqayaa dawladda ha garab istaagaano ciidamadooda ha garab istaagaano naftooda ha huraano aan iska sifayna nin walba uu seeftaada guriga kala soo bax aan la dagaalano Cabdirashiid Nuur Ibraahim telefishinka qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho.